afhayeenka midowga musharaxiinta madaxweynaha dalka Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka shirka wada tashiga doorashada ee ka furmaya Muqdisho ee isbedelada dalka ka dhacay. Afhayeenka oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in midowga musharaxiinta ay taageersan yihiin hanaanka ra'iisul wasaare Roble kula wareegay doorashada ayna la shaqeynayaan. sidoo kale musharax Daahir Geelle ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in aragtidiisa uu ku muujiyo in hoggaanka uusan kala gadisnayn balse aragtida ay kala gadisan tahay. sidoo kalena shirka 20ka bisha May uu gundhigiisu noqdo heshiiskii 17 Sebteembar. afhayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa sidoo kale sheegay in shirka wada tashiga doorashooyinka uu noqdo mid loo wada dhan yahay oo ay ka qayb galaan midowga musharaxiinta beesha caalamka, ururada bulshada rayidka iyo cid kasta oo ka soo shaqeysay dowladnimada Soomaaliya. shirka soo socda waxaan rabnaa in ra'iisul wasaaruhu ku muujiyo in aragtida hoggaanka uusan kala gadisnayn kaliya aragtidu ay kala gadisan tahay oo aragtidu ay ku kala gadisnaato in shirka saldhigga ay u noqon doonto heshiiskii 17 Sebteembar laakiin wixii kale oo idil loo baahnaa looga hadlo isla markaana miiska wada hadalka annaga midowga murashaxiinta hadii aan waxaan leenahay ku dhig ah arrinta Soomaaliya inay tahay miis ku dhamaato laakiin miiska ay ku dhamaanayso waa miis loo dhameystiran yahay oo dadka ay wada fadhiyaan waxaan waa inay ka qayb galaan midowga murashaxiinta civil society waa inay ka qayb galaan bulshada qaybaheeda kale waa inay ka qayb galaan dadka rabna inay ka qayb galaan shirka waa dad dowladnimada loo yaqaano ka soo shaqeeyay marxalada wanaagsan soo gaarsiiyay leewala kala gadsan uga soo shaqeeyay madaxweynimo uga soo shaqeeyay qaarkood gudoomiyenimo uga soo shaqeeyeen qaar wasiirro uga soo shaqeeyeen iyo siyaasiyiin lagu yaqaano saaxada siyaasadda Soomaaliya arrimahaas oo iyadoo ay jiraan waxaan rabnaa miiska in la noqdo miis Soomaali u dhan tahay si wax Soomaali ay wada leedahay uga soo baxaan si wax mas'uuliyadda Soomaali ay wada qaadana ay uga soo baxaan. ugu dambeyn afhayeenka midowga musharaxiinta Daahir Geelle ayaa waxa uu ka hadlay warar lagu faafinayay baraha bulshada ee ku aadanaa inuu khilaaf soo kala dhaxgalay midowga musharaxiinta waxaana uu sheegay in musharaxiinta ay yihiin kuwa mideysan. warqadu waa sax way naga soo baxay midowga murashaxiinta warqadaas waa ku simeeyeen mowqifka dhabta ah ee aan ka taaganahay ra'iisul wasaaraha iyo shirka soo socda iyo doorashooyinka waa midka aniga aan sheegay ana afhayeenkooda ah kaasay ku gowracan tahay midowga murashaxiinta si dhameystiran warqadina waa loogu saarin karaa warka aniga aan idina waa loo saarin karaa warka aan aniga Daahir Maxamuud Geelle aan idina looma saarin karo laakiin aniga afhayeenka ah markaan idhaahdo waa loo saarin karaa marka mowqifka rasmiga ah oo arrimaha la sheegay aan ka taaganahay kaan saaka aniga idin waay. midowga musharaxiinta ayaa arrimaha doorashooyinka amniga markii uu la wareegay Roble taageeray. Abshir Cabdullaahi Amiin, Nabad TV, Muqdisho.